بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada mar kale saaxiibayaal koorsadeena ayaynu hore u gelin doonaa marka ugu horeysa waxaanu ka bilaabaynaa horta waa maxay forex waa maxay ereygan iyo macnihiisa xagee ka yimi forex waxa loo soo gaabiyay foreign exchange isku bedelka lacagaha qalaad marba hadii lacagta wadankaaga aysan ahayn waa lacag qalaad wadanka doonto ahow marka foreign exchange ayaa loo soo gaabiyay forex waa suuqa lagu kala iibsado lacagaha dalalka kala duwan waa suuqa ugu weyn adduunka waxaana maalin kasta lagu kala iibsadaa lacag ka badan trillions of dollars yani lacag trillion ka badan hadda 2020 ilaa meelahaas waxa la sheegi jiray in ilaa 5-6 trillion wax ka badan ay maalintii dhex maraan waa beerdi ay maalintii dhex maraan marka suuqa intaas lacaga ay dhex marayaan oo lacagahaas waaweyn inaad wax ka qabsan weydaay waa xogaa qurux badna yaa saameyn ku leh suuqa kan maxaa dhaqaajiya suuqa kan waxaa saameyn ku leh kow bangiyada labo shirkadaha waaweyn oo maaragtay sida Tesla Apple iyo kuwa la midka ah iyo dawladuhu saameyntooda badanka waxay soo baxdaa marka wadanka ay ka dhacayso doorasho marka wadanka uu dagaal galo marka wadanka dhaqaalihiisu uu dhaco marka uu sicir bararku ku yimaado markaas ay dawladaha badankood saameyntooda la arkaa inta kale si xogaa dhaqdhaqaaq badan ma leh dawladaha marka la joogo sidee ayuu u shaqeeyaa forex waxa uu shaqeeyaa iibsiga hal lacag iyo iska iibinta lacag kale waa inaad lacag iska iibinaysid oo lacag kale soo iibsanaya ama adoo lacag iibsanaya lacag kalena iska iibinaya ama lacag iska iibinaya lacag kalena soo iibsanaya saas oo kale waa isku bedelka laba lacagood weeye tusaale ahaan hadii aad aaminsan tahay in adoo haysta lacagta euro oo kale in ay kor u kici doonto hadii aaminsan tahay lacagta euro waa iska gadaysaa buy baa dhahaysaa lacagta kadibna faa'iidadaas aad qaadanaysaa hadii maaragtay qiimuhu uu hoos u dhaco yani sidii aaminsaneed ay noqon weydana waad khasaaraysaa oo maaragtay khasaaraya gelaysaa laakiin hadii uu qiimuhu kaco oo buy ay iska dhahdid waa faa'iidaysaa markaas oo kale ashirka saddexaad lacagaha looga shaqeysto suuqa kan meeqa lacagood baa looga shaqeystaa noocee yihiin maxay u kala baxaan forex waxa looga shaqeystaa lacag aad u badan waxaana la isku raaciyaa laba yani hal lacag kaligeed waxba maaragtay kuma sameynayso daarti inaad lacag isku bedeshid adoo deynta suuqa intaa fariisatay dollar u qaatay dollar baan dollar ku bedeliyaa hadii waa macquul ma marka lacagaha waa la isku raaciyaa laba waa la isku raaciyaa maaragtay bayris ahaan baa la isku raaciyaa laba marka saddex baa loo kala qaybiyaa bayriska major bayris yani bayriska waaweyn waa lacagaha ay la socoto lacagta dollarku waana kuwa ugu badan ee suuqan looga shaqeysto yani lacagta hadii mar lacag dollar la socoto waa lacag weyn weey sida euro USD oo lacagta Europe ah GBP USD waa Great Britain pound iyo dollarka USD CHF xarfahan waa xarfa la soo gaagabiyay USD CHF oo kale waxa iska leh dalka Switzerland waa Swiss French waxaas loo soo gaabiyay dollar Swiss French USD JPY na waxa iska leh dalka Japan baa iska leh waa USD Japan yen baa loo soo gaabiyay Japan yen baa lacagtaas loo soo gaabiyay marka lacagaas oo kale waa lacagaha waaweyn oo suuqa xoogaa awood ku leh minor bayriska waa lacagaha dhexdhexaadka ah kuwaas oo kale waxa kamid ah euro oo lagu bedelayo lacagta poundka lacagta euro oo lagu bedelayo lacagta Japan lacagta poundka oo lagu bedelayo lacagta Japan saas oo kale weeye exotic bayrisna waa lacagaha maaragtay waaweyn ya lacagaha dalalka soo koriya dal hadir soo koriya oo kala dhaqaalihiisa iyo dalalkii waaweyn lacagooda kala isku qabanaya hadda euro TRY waa lacagta Turkish lira USD TRY USD SAR-na waxa iska leh dalka South Africa iyo meelahaas baa laga isticmaalaa marka lacagooda saas loo isticmaalaa labana la isku raaciyaa waana sida maaragtay lacagaha looga shaqeysto forex-ka
xilliyada uu shaqeeya suuqa waxa uu shaqeeyaa toddobaadkii 5 beri maalinta Isniinta ilaa maalinta Jimcaha buu shaqeeyaa 24 hours buu shaqeeyaa maalin kasta wuu furan yahay maalmaha uu furan yahay 24 hours buu shaqeeyaa saacad kasta wuu furan yahay yani uu shaqeeyaa saacadaha ugu wanaagsan ee suuqan laga shaqeysto waa 3 session ama 3 xilli ama 3 suuq ayuu aad u shaqeeyaa ko waa suuqa maartay Asian maxalla Asian session oo suuqa Asianka suuqa London iyo suuqa New York saddexdaas suuq buu badanka maartay aad u shaqeeyaa saddexdaas suuq baa laftirkooda si kala duwan oo si kala wanaagsan oo xilli maartay fiican kala leh ama xilli maartay aad looga shaqeysto xilliga Asianka awoodiisu xogaa way yar tahay oo dhaqdhaqaaq badan suuqu ma laha badanka lacagaha la yara ururiya oo maartay orderada la yara ururiya London liquidity-ga badan oo maartay orderadiiba maartay dib baynu ka baran doonaa casharadaas liquidity-ga iyo kuwa badan liquidity badan buu leeyahay London New Yorkna dhaqaaq xoogan iyo wararka newsyada oo ku badan New York ba marka maartay xilliga ugu wanaagsan waa xilliga maartay London iyo New York oo maartay overlap loo yaqaan London iyo New York xilliyada ay isku waqtiga furan yihiin waqtiyadaasna waynu baran doonaa oo maartay xilliyada ay israacaan oo London uu furan yahay New Yorkna uu furan yahay dib baynu ka baran doonaa xilligaas kale muxuu ku wanaagsan yahay suuqu volume buu leeyahay sidoo kale volatility-na sarana wuu leeyahay volume volatility laftirkooda waa sii baran doonaa insha Allah waa dhaqaaq weyn baa suuqu ku jira xilligaas oo kale dhaqaaq weyn baa suuqu ku jira waa xilliyada ugu wanaagsan xilliyada si kale wanaagsan waan ku dhahay laakiin xilliga ugu wanaagsan waa xilliga New York iyo London ay isla joogaan casharka shanaad mawduucana shanaad aan leeyahay waa casharkeena koowaad waa kuwa kan waa ina horta maaragtay aad u fahanto way u baahan yihiin waa very important weeye badanka casharada laguma daro maaragtay macallimiinta courseska iyo waxaas bixiya maaragtay casharada kuma daraan laakiin waa cashar aad u wanaagsan bid iyo ask oo kale bidku waa maxay waa qiimaha brokerku ka iibinayo marka hadii broker wax ka iibsanayso oo kale qiimaha lagu dhufanayo pointiska ama maaragtay piipska oo kale weeye maxay askigun waa maxay waa qiimaha brokerku maxaa ku iibsanayo midna uu ka iibinaya midna uu maaragtay uu ka siinaya ama spreadku waa maxay waa farqiga u dhaxeeya bid iyo ask yani spread hadda ama tusaale ahaan lacagta tan waa euro ba waxay gaartay 1.1 thousand iyo 1.1 thousand two gaas yarka ah oo u dhaxeeya baa wuxuu yahay spread mar haddii maaragtay brokerka aad ka qaadanaysid aan isticmaalaysid oo kale oo spreadkiisu badan yahay waxa macquul ah adigoon SL-kaaga la gaarin ama meesha lacagta uga bixleed la gaarin in uu kaaga dhufto SL-ka oo kale oo liquidity ahaan uu spread kugu sameeyo isagoo maaragtay meeshaadiba la gaarin baa macquul ah bid iyo point bidku waa maxay bidku waa cabirka maaragtay qiimaha oo dhaqaaqo cabirka lagu yani qiimaha dumar dhaqaaqo cabirka lagu cabiro baa bib la dhahaa intaasoo bib buu dhaqaaqay lacagto kale baa leedahay ilaa 10 bib dhaqaaqday 20 bib 30 bib dhaqaaqday baa leedahay amal point waa maxay pointu waa qayb ka yar bibska 10kii point baa waxay la mid tahay hal bib yani halka kan oo kale baa pointida loo xisaabinaya hadda 1.1 thousand soma 1.1 thousand 10 markay tagto waxay noqonaysaa hal bib oo kale bay noqonaysaa leverage waa maxay waa awoodda brokerku ku siinayo si aad lacag ka badan tan aad haysato ugu ganacsato leverage baa la yani waa awood buu ku siinaya brokerku si aad lacag yar wata lacag weyn u samaysid oo kale tusaale ahaan 1/10 oo maxaa la 100 oo kale yani $100 ayaa ku ogolaan maxaa la hayo brokerku ku ogolaanaya inaad ku maamisho $10,000 oo kale yani sidii $10,000 amal baa meesha uga shaqeysanaysa laakiin adoo wata $100 amal leverage wuxuu ku kordhinayaa faa'iidada maxaa la sidaas la midna khasaare uu ku gelin karaayo waxa laga yaabaa hadii leverage weyn ay isticmaashid inuu maaragtay lacagta iyadoo hal mar isaa kugu soo laabato inay ka saartaba oo $100 hal mar ka kac noqdo ama in hal mar intay ku dhaqaaqdo oo $100 lacag weyn amal hal mar sameeyo labadaba waa ka macquul leverage ku khasaaro iyo faa'iido labadaba uu kugu keeni karaa margin-ka waa lacagta brokerku ku xanimayo si aad trade-kaagu maaragtay kugu furnaado yani lacagta ku tusaale ahaan waaba kan hadii aad furto trade weyn
qayb kamid ah balansigaaga ayaa lagu haynayaa margin ahaan. yacni haddaa maaragtay trade weyn furtid ama lod weyn ku gashid oo kale tradeka ilaa 3 4 5 lod oo kale haddaa ku gashid adoon haysan lacag u dhigmata lodkaas in loo isticmaalo, yani waxa maaragtay lacagtaada xogaa wuu isku celcelinayaa marginku, wuu isku yara celcelinayaa lacagtaada. marka broker marginka fiicanna way kasii fiican kuwa kale. lotsis maxaa la dhahdaba? lotsisku waa lacagta cayiman aad ku gelaysid suuqa si aad iskugu sariftid laba lacagood oo kala duwan. يعني lacag cayiman hadda waan ku dhahay hadda lacagta lotsis weyn ku gashid marginku xogaa wuu ku celcelinayaa. adoo lotsis weyn ku galay hadii leverage-kaagu maartay hadana brokerkaasi maartay leverage-kiisu uu weyn yahay, waxa macquul ah in lacag weyn aad samaysid. hadii ay kugu soo jeesateen waxa macquul ah khasaare weyn inaad gashid labadaba. marka lotsisku waxa maaragtay lotsiska waxa lagu saleeyaa hadba maaragtay lacagtaadu inta ay la eg tahay ba maaragtay u isticmaalaysaa. hadda lotsiska taqaanid iyo sida loo isticmaalo waa khasaare badan ma geli doontid. hatta khasaare gashina wax yar isoo noqon doona, hadii faa'iidadaadana way fiicnaanaysaa oo mar walba dii maaragtay kun lagu dareeba maaragtay wax badan dhalaan. marka si loo isticmaalaa lodka iyo maaragtay lacagaha loo isticmaali karo. lodka saddex nooc baa loo xisaabiyaa ama loo kala qaybiyaa, waa mini lot iyo micro lot iyo standard lot. mini lotka waxa loo isticmaalaa lacagaha u dhaxeeya $100 ilaa $900. mini lot baa loo isticmaalaa oo boontiya adiga lagu galaa 0.01 0.05 0.06 waxaas lagu galaa oo lotka yacni 10 bib hadii ku dhaqaaqdo lacagta aad ku gashay 0.01 hadii 10 bib ku dhaqaaqdo waa $0.1 hadii 100 bib ku dhaqaaqdana waa $10. micro lot waxa lagu galaa hadii aad haysatid ama akoonkaaga lacag ay dhan ay ku jirto $10 ilaa $900 hadii ay ku jirto waxaad isticmaali kartaa micro lot oo lodadka yar yar 0.1 oo kale 0.4 0.5 0.6 waxaas oo kale isticmaali kartaa. hadii 10 bib ay ku dhaqaaqdo adoo ku galay 0.1 oo kale waxay ku noqonaysaa $1. hadii 100 bib ku dhaqaaqana waxay noqonaysaa $100. yani adoo lacag yar watay ba 0.1 oo kale ku furatay 100 bib haduu hal mar ku dhaqaaqo waa maaragtay lacag fiican baa qaban kartaa. standard lot waxa loo isticmaalaa lacagaha 10,000 ka badan, 10,000 ilaa iyo wixii ka badan oo baa u isticmaali kartaa. kan koowaad waa 100 ilaa 900, ka labaad waa 1,000 ilaa ilaa 9,000, ka saddexaadna waa 10,000 ilaa iyo wixii ka badan baa standard lot kale. standard lot wuxuu noqon karaa oo kale 5 lot 6 7 8 9 10 ilaa 20 30 40 waxaas oo kale waa standard lot. yani waa lodadka waaweyn bay ku noqonaysaa. waxyaabaha ardayga maaragtay waxyaabahan waa inuu fahmaa ardaygu marka modulkan dhamaado. waa maxay waxyaabaha fahmayso oo kale? waa maxay suuqa forex? waa inaad taqaano hadii muuqaalkan aad dhamaysatay sidoo uu shaqeeyo, noocyada currency pairska, trading sessions iyo waqtiga ugu habboon ee la trade gareeyo. hadda waqtiga ugu habboon waxaynu New York iyo London markay isla joogaan, ama London oo kale uu badanka xogaa fursado uu bixiyaa xilliga London, laakiin Asianka iska ilaali. Asianka iyo waqtiyadiisa iyana maaragtay casharada dambe ku qaadan doonaa oo maaragtay casharada sessionskana waynu qaadan doonaa xilliyada uu furmo iyo xilliyada uu xirmo. laakiin waxaan ku sii sheegay in Asianka iska ilaalisid. oo Asianka waa 2 habeenimo 3 4 5 6 subaxnimo iyo xilliyadaas oo kale suuqa aad looma trade gareeyo. waxyaalaha maaragtay loo baahan yahay ardaygu intuu basic yahay inuu ogaado. runtii daanu marka basic ah ma soo ogin, leeymana sheegay meel ku qoran tahayna ma arkin, laakiin haddii aan ku sii sheegay xilliga Asian session iska ilaali. badan kala trade gareeyo suuq waa dhaqaaq badanna ma leh. manipulation kana ku badan, manipulation laftirkiisana dib baynu ka qaadan doonaa insha Allah. PDS-ka maaragtay waa inaad taqaanaa, spread-ka sidoo kale, BBO point-ga sida loo xisaabiyo inaad taqaanaa, leverage-ka iyo khatartiisa waa inaad iska ilaalin kartaa. margin-ka iyo sida loo isticmaalo waa inaad taqaanaa. lotsiska kala duwan iyo sida loo isticmaalayana waa inaad taqaanaa. haddaan mar casharkan dhamaysatay haddii maaragtay intaas aad fahminna fadlan casharka ku cesho mar kale daawo. hana u gudbin casharka kale adoo kan fahmin. wixii su'aalaha qabtona ila soo wadaag. casharkeena koowaad bayna halkaas inoogu soo dhamaanaya. wixii su'aalaha qabto way la soo wadaagi kartaa Telegram-kayga maaragtay iyo Instagram-kayga hadba kii aad rabtid baad iyagu soo qori kartaa wixii su'aalaha wadatid. kulligoodna waxay yeelaan qaybta description-ka. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. muuqaalka sii faafiya, koorsadan waa free, walaalaha way kala gaarsiin. aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.